بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan ka hadlaynaa wax la yiraahdo emetropia and ametropia. Emetropia maxay tahay and ametropia maxay tahay? waa cashir yar oo kooban oo aan ku fahmayn insha Allah waxay kala yihiin. ugu horeyn marka ilayska uu soo galo isha waxa uu soo maraa xubno macna structures loogu talagalay sida tears mataqaana ilinta, cornea, aqueous, iris, lens, vitreous ilaa la yaqaano shabakada aragga oo qaabilsan ee loo yaqaano retina. xubnahaas marka uu soo maraa ilayska mid walba waxa uu ka qayb qaataa qaloocinta ilayska, refraction of light. mid walba structure walba uu soo laabto uu soo maro macnaha ilayska wuxuu ka qayb qaadanaa qaloocinta ilayska. sababta marka loo qaloocinayo ilayska maxay tahay? sababta loo qaloocinayo ilaysku waa in ilayska isha soo galaa la isugu geeyo shabakada dambe ee aragga u qaabilsan isha ee loo yaqaano retina. ilayska waa kana isha uu soo galay, shabakadan dambe si la isugu geeyo ayaa ilayskii kala duwanaa isha soo galayay loo qaloocinaa. That is the main reason. haddaba waa maxay marka emetropia? haddaba marka ilayska isha soo gala uu si toosa u gaarayo shabakada aragga retina iyadoon wax arqalada arkin oo aanan waxba arqalad isagoon arkin uu retinada gaarayo, xaaladda accommodation ee ishuna ay tahay mid caadi ah. accommodation cashir gooni aan ku sharaxnay videogiisa isla Xanaf Academy aad ka helaysaa, si gooni u daawo. marka xaaladda accommodation isha ay ku sugan tahay markaas ay tahay mid caadi ah, at rest oo minimal, oo macnaha qofka uusan markaas accommodation isticmaalin laga wadaa. asagoon qofka marka uusan accommodation badan isticmaalin haddii ilayskii soo galaya isha uu si toosa retinada u gaaro ayadoon wax arqalada uusan la kulmin ayaa la yidhahdaa emetropia. aydan tuso kasoo qaadnaan dhahnay ishii waa tana sawirkay ma yara qurux badna raalli aada. lensigii waa kana, ishii waa tana, ilayskii waa kana, ishii uu soo galay. this is ilayskii waa light. ilayska marka uu si toosa u gaaro marka shabakadan dambe aragga u qaabilsan ee loo yaqaano retina ayaa la yidhahdaa emetropia iyadoon wax arqalada uusan la kulmin. haddaba waa maxay emetropia? emetropia waa marka ilayska soo galaa isha uusan ku dhacaynin shabakada aragga retina ee uu ku dhacayo ama shabakada horteeda in front of the retina ama shabakada gadaasheeda behind the retina. cudurro jira awgeed ayaa la yidhahdaa marka emetropia. macnaha lightkii isha soo galaa meeshii la rabay on retina, retinada dusheeda inuu ku dhaco wuxuu ku dhacayaa ama horteeda ama gadaasheeda ayuu ku dhacayaa. markaas waxaa loo yaqaanaa xaaladda noocaasa emetropia. aan idin tuso kasoo qaad ishii inay saan tahay. ishii markay saan tahay ilayskii soo galayay isha meeshii la rabay inuu ku dhaco retinada dusheeda ama wuxuu ku dhacaa horteeda amaba wuxuu ku dhacaa gadaasheeda cudur jira awgeed. markaasaa isha noocaana waxaa loo yaqaanaa emetropia. haddaba waa maxay marka cudurrada sababi kara emetropia? qaar ka mid a cudur walba waxaan insha Allah video gooniyan kasoo suubi doonaa, laakiin hadda as a brief cudurro yar oo ka mid a idin sheega. tusaale cudurkan la yiraahdo hypermetropia. hypermetropia kale wuxuu suubiyaa ishii waa tana. qofka hypermetropia qabo ilayska soo gala ishiisa waxa uu ku dhacaa qaybta dambe ee isha behind the retina ayuu ku dhacayaa. waxaa la yidhahdaa hypermetropia. tusaale kale waxaa ka mid ah cudur la yidhaahdo myopia. qofka myopia qabo kasoo qaad ishiisa waa tana, ilayskii soo galaya isha waxa uu ku dhacayaa in front of the retina. qofka in front of the retina uu ilaysku ku dhaco waxaa la yidhahdaa wuxuu qabaa
cudurka myopia tusaale kale waxaa ka mid ah cudur la yiraahdo astigmatism. Astigmatism waxaa dhacayo ishii waatanaa ilayskii soo gala isha kuma dhacayo retinada oo wuxuu isu kala qaybinaa mostly labo, ama mid ku dhaco infrontiga ama mid ku dhaco gadaashiisa, ama marmar waxaa dhacdo in labadaba ee gadaasha isha ay ku wada dhacaan, marmarna waxaa dhacda in labadaba ay ku dhacaan isha horteeda. asagana waxaa la yidhaha astigmatism. Marka cuduradan ay cuduro kale oo badan oo emetropia ka mid ah waxaan uga hadli doonaa cashiro gooniya mid walba. Midaan waxaan ka damacsanay bis inaad fahantaan emetropia waxa ay tahay. waa mahadsantihiin insha allahu mataqaanaa cudurada kale cashiro gooniya ayaan ku sharxi doonaa.